وما تنتهي حسن رنتي وأركي ضد بدن أو يعني سببت فشلك أما سببت دولتك صار السوق أي سيدي للربي نطق مع هوله الله أي يقفلوا ويان dad badan oo ku eedeynaayo meelo kale laakiin anigu runtii waxaan dhihi lahaa wax kastoo xumaada wax kastoo qalloocdaba aniga kulli Soomaalida dadka Soomaaliyeed kaba fogeeyeen sababta marka waxaan dhihi lahay soo wadan kasta dadkiisa dad u ah wadan kasta dadkiisa nooleeya ama dumiya marka Soomaaliya hadii ay rabaan inay dalkooda yani dadka Soomaaliyeed inay dalkooda xornimadiisa yani xoojiyaan magaciisana soo celiyaan ummadda Soomaaliyeed ay kula heeday maqaanka adduunyada oo dunida oo dhan mataqaanaa meeshii ay ka fadhiday inay yani mataqaanaa ku soo laabatana hadee dadweynaha Soomaaliyeed ay ku xirantaa guud ahaan gaar ahaan mas'uuliyiinta siyaasiyiinta waxgaradka haweenka dhalinyarada ayadoo la kala soocin marka runtii iska jiraan waxyaabo kale laakiin wadankaayo markaad adiga wanaagiisa ka shaqeysid oo yani duubatid inta kale intoodna way ku qasbayeen inay kula guntadaan laakiin marka adiga gacmaha isa saaratid aad tiraahid cid kale wax ii qabanaysa hadda waa hungoobaysa dadku waxaasoo ku hungoobayaan marka anigu waxaan sababta saari lahaa dadka Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay ha ka bedelaan ha iska bedelaan qaabka ay mataqaanaa hadda ka dhigteen culture-ka oo ay inay dibadda kaliya wax ka sugaan taas waa mid waxaan kaloo qabaa runtii Soomaaliya dagaal sokeeya ka dhacay dhibaatooyin ka dhacay dad badan oo waxgarada oo yani muxuu ahaay way aragnimo wanaagsan leh ayaa dalkii ka soo baxay dalka dibadiisa jooga Soomaalida yani dibad jooga oo qurbi jooga waxgaradkii intiisa badnaa ayada ayuu ku jiraa waxaan qabaa dib ay isugu laabteen haddadaaleen hamidoobeen iska ilaabeen qoqob iyo waxyaalo kale intood macnaha ayaga qurba jooga Soomaaliyeed ayaa maantay fursadna u haysta inay ummadooda siday ku badbaadi lahaayeen muxuu ahay ku dadaalaan inay wixii la soo dhiso oo la soo dhiso dawlad ahaan loo soo dhisana gacan siiyaan garabna u noqdaan dalkana samuta bixiyaan wixii qalloocana siday ku toosi lahaayeen falkeeda galaan saasa nur cadde dadka intiisa badan waxay kaloo eeda saaraan maamulka loo soo dhiso ama dawladda la soo dhiso waxay timaadaa iyada oo madaxweyne leh ra'iisul wasaare leh gudoomiye baarlamaan leh markii waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo isku awood ah caqabada ayay ka mid tahay waayo waxa burburka marka horeba ka yimaada waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isdagaala kadibna baarlamaanka kala qaybsadaan arrinkaas baa lagu eedeeyaa marka halkaas armiga iyada laftirkeeda ay fiicnaaleed in wax laga bedelo ma isleedaha taas wallahi runtii aniga waxaan isleeyahay taas sida loo sheegayo ma wada ahan wadankeena horta wadan kastaba dastuur iyo nidaam uu ku dhaqmo uu leeyahay annaga hadii dastuur waa qabnay dastuur wanaagsanna waa la haynay laakiin burburkii kadib kulli dastuurkeeni yani waa uu iska laalnay haddana waxa lagu shaqeeyaa ahad qarameed meel ku gaara oo muxuu ahay Nairobi markii lagu soo dhisay dawladda ku meelgaarka ayaa la sameeyay waxaana loogu talagalay muddo 5 sanadooda in dalka loo gudbiyo marxaladda uu ku jiro oo loo gudbo marxalad wanaagsan oo dalka lagu gaarsiiyo mataqaanaa qaab wanaagsan iyo doorasho muxuu ahay dadku ay dooranayaan qof walba cod leeyahay lagana gudbo nidaamka hadda lagu dhaqmo oo ah 4.5 marka anigu waxaan qabaa axrigaas waa fiican yahay awood isku madarna waa kala soocan tahay muxuu ahay waa wanaagsan tahay aan qabaa
laakiin haddii marka awoodda ra'iisul wasaaraha la maslada inta lafteeda hadduu madaxweyne yahay hadduu ra'iisul wasaare yahay iyo hadduu wasiir yahay hadduu baarlamaan yahay ayagaa laga rabaa inay xurmeeyaan oo yacni mas-uul kastaba xayndaabka awooddiisa uusan ka gudbin uusan midka kale yani awood kale u hanqal taagin waxaa laga rabaa in lays xushmeeyo in awoodda ay tahay mid ummadda loogu adeegayo ayaa la doonayaa marka anigu waxaan qabaa halkaas marmarsimo ma noqonayso marmarsimo waxaa waaye dadka mas-uuliyiinta ah inay ayaga yacni ogaadaan inay adeegayaashii ummadda soomaaliyeed yihiin ummadana si wanaagsan ugu adeegaan taasaan anigu ku adkayn lahaa ambasador waa la socotaayo wadamada dariska haddaa fiiriso xataa Ethiopia ra'iisul wasaaraha ayaa awoodda iskale oo madaxweynuhu awood badan ma lahan dawladda la soo dhiso Soomaaliya ra'iisul wasaaraha miyaad isleedahay isaga ayaa awood badan oo madaxweynaha ka awood badan mise madaxweynaha ayaa awood leh mise labadoodu way wada siman yihiin adigu hadda ra'iisul wasaare waad soo noqotay yaa awoodda iskale oo mar walba lagu xadgudbaa حسن رمانتي تاس وحان دي كرنا يعني دادك كل يسيسيهم بيوحوت المعاميان لكن أود واقعان تهي اسكو مقل دنا رئيس الوزراء أود دي سوا قرن تهي مدحوينها أود دي سنوا قرن تهي waxaana la rabaa mar kasta iyadoo awooddi saas ay tahay haddana inay wada shaqayn fiican iyo isxurmayn iyo isqadirin iyo iyadoo la og yahay in waxa loo adeegay ay dadweynihii Soomaaliyeed yihiin weliba iyadoo waqtigan yani dalkeena oo ku jiro runtii dhibaato aad u adag marka waa garan karnaa isqabqabsi iyo awood mataqaanaa xoogaa ku muran inaysan wanaag keenin dhibaato moogiye marka awoodda maahan yani sharciga ma saareen sababta aniga kulley sababta waxaan saari lahay haddii isqabqabsi uu jiro dadka mas-uuliyiinta ayaga dib ay isu noqdeen taasaan qabaa kulley waxaa kaloo la yidhaahdaa inta badan madaxweynaha markuu ra'iisul wasaare soo magacaabayo ma ahan joyce ama dooq uu isagu leeyahay oo yimaado laakiin waa wax kor looga keeno oo la yiraahdo ninkaas ra'iisul wasaare ka dhig marka taa miyay jirtaa isleeda ma taas kulay ma jirto madaxweynaha tala kasta hala siiyo kor ha lagala hadlo hoos ha lagala hadlo laakiin awoodda sharciga oo tilmaamayo waxa waaye madaxweynaha ayaa soo magacaabaya ra'iisul wasaaraha taas waaye marka waxaa jiro kale intood oo xoogaa qalad ka jira meesha in la fahmo loo baahan yahay waagii hore annaga dastuurkeena wuxuu dhigayay markii ra'iisul wasaare la soo magacaabo oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magacaabo ra'iisul wasaaraha wuxuu dhisayay xukuumaddii la geenayo baarlamaanka markii la geeyo si loo ansixiyo markaas hadii la ansixiyana waa hagaagtay hadii la ansixin waayana hadda dawladdii markaas waa dabcan waa dhacaysa waxay u baahanaysaa haddana in lagu laabto laakiin meeshan waxaa jirto oo axdi qarameedku oo yani qorayaa qodob waxaa ku jira aan marka hore dastuurkeena ku jirin oo ah madaxweynuhu marka uu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha magacaabidda madaxweynaha kadib inta aanu soo dhisin xukuumadda waxa uu tagayaa baarlamaanka ayaa la rabaa inuu ansixiyo magacaabidii uu madaxweynaha magacaabay ra'iisul wasaaraha ansixiddaas ayaa meesha ku saa'ida daban ansixiddaas waxay leedahay marka waxay keenaysaa nidaamka ah madaxweynuhu magacaabidda ra'iisul wasaaraha asagaa iskale yani cid kasta hala taliso culays kasta hala saaro laakiin eedeeda iyo wanaageedaba asaa qaadaya markii uu soo magacaabo
baarlamaanka ayaa laga rabaa ansixintiisa